amuuraha caalamku waa barnaamij aanu kula socodsiino daawadayaasha xogaha kala duwan ee dunida ka dhaca. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad ku sugan tihiinba ku soo dhowaada barnaamijkeena amuuraha caalamka. toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa macluumaad ku saabsan kala taliyihii muslimka ahaa ee soo maray xukunka waddanka Uganda, Idi Amin Dada. Idi Amin Dada waa hogaamiyihii ugu caansanaa ee taariikhda Uganda soo mara. Wuxuu ahaa sarkaal ciidan oo ka soo jeeda qoys muslimiina, waxaana uu noqday madaxweynihii saddexaad ee Uganda soo mara. intii xilka uu hayay waxa uu sameeyay taariikh caan baxday iyo tacadiye baaxad leh, isagoo cagta mariyay dad lagu qiyaasay nus milyan qof. waxaa si weyn loogu xusuustaa siyaasadihiisii uu kaga soo horjeeday reer galbeedka iyo Yuhuudda. wuxuu isu yaqaanay ninka Afrika ka xoreeyay xukunkii gumaysiga, gaar ahaana boqortooyada Ingiriiska. waxaa kaloo isugu yeeri jiray xoreeyihii dhaqaalaha Uganda, maadaama dalka uu ka dareeriyey ajaaniibtii ka soo jeeday Ingiriiska, Yuhuud iyo Eeshiyaanka ee kootada ku haystay ganacsiga waddanka Uganda. waxaa kaloo oo aynu soo qaadan doonaa taariikhdiisii gumaysi nacaybka iyo sida uu ula dhaqmi jiray diblomaasiyiintii caddaanka ee dalkiisa ku sugnaa, dagaalkii uu Idi Amin ku soo qaaday Soomaalida, iyo hadalladii aan gabashada lahayn Idi Amin uu ku dalban jiray in Israa'iil laga xoreeyo Falastiin iyo bariga dhexe guud ahaan. Israel must obey that order to withdraw from all Arab territory. Idi Amin Dada waxa uu ku dhashay deegaanka loo yaqaano Koboko oo ka tirsan gobolka galbeedka Nile, waxaana dhalay aabbe ka soo jeeday qowmiyadda loo yaqaano Kakwa. hooyadiina waxay ka soo jeeday qowmiyadda loo yaqaano Lugbara, sida uu qoray taariikhyahan lagu magacaabo Fred Gudaweko oo ka tirsanaa jaamacadda Makerere ee waddanka Uganda. Idi Amin Dada ayaa yaraantiisii waxaa malcaamadda Qur'aanka la qoray 1941. dugsigaasi islaamiga ayaa waxa uu ku yaalay deegaanka Bombo. Idi Amin Dada waxaa soo korisay hooyadii, waxaana uu ku barbaaray deegaanka hooyadii ay ka soo jeeday. sannada kadib markii dugsigaasi islaamiga uu ka baxay, waxa uu galay dugsi kale oo luuqadda Ingiriisiga uu ka gaadhay ilaa fasalka afraad. markaasi kadib, taariikhdu markii ahayd 1946, Idi Amin Dada waxa uu ku biiray ciidanka Afrikaanka ahaa ee gumaysiga Ingiriisku ay sameeyeen, kuwaas oo la odhan jiray King's African Rifles, waxaana uu ahaa askariga cuntada u sameeya ciidanka. kadibna waa uu dalacay, waxaana uu noqday sarkaal hoose. Lieutenant Idi Amin Dada guutadii 21aad ee uu ka tirsanaa waxaa gumaystihii Ingiriisku uu markaasi u wareejiyey inay ka howlgalaan Kenya oo Ingiriisku uu ka talin jiray. intii guutadiisu ay ka howlgalaysay Kenya, waxa uu dagaal la galay jabhaddii Soomaalida ee gobolka NFD amaba waqooyi bari Kenya 1952. dagaalkaasi oo loo yaqaanay Shifta War amaba dagaalka fallaagada. colaadaasi dad badan oo Soomaaliya ayaa lagu gumaaday xilligaasi. Idi Amin Dada intii uu Kenya ka howlgalayay, waxa uu sidoo kale la dagaalamay fallaagadii Mau Mau ee u diriraysay xornimada waddanka Kenya. Idi Amin ayaa waxaa lagu soo celiyey Uganda, isaga iyo ciidankiisii ku sugnaa Kenya 1959. markii Uganda uu ku noqdayna, waxaa haddana loo diray inuu gacanada ku qabto dagaal beeleedyo u dhexeeya qowmiyadaha xoolo dhaqatada ah ee loo yaqaano Karamachong oo dhinaca Uganda iyo Turkana oo dhinaca Kenya, isagoo awood ciidan adeegsanayay. howlgalladaasi kadib ayaa Idi Amin la dalacsiiyey, waxaana garbaha loo suray darajada ugu sarraysa ee Ingiriis iyo sarkaal Afrikaana. si kastaba ha noqotee, waddankiisa Uganda ayaa xorriyadda waxa uu ka helay boqortooyada Ingiriiska 1962. 4th Battalion King's African Rifles becomes the 1st Battalion Uganda Rifles. And to replace the Union Jack, the black, gold and red flag of the new young state, Uganda is born again, free and independent. Idi Amin Dada waxa uu ahaa nin dheer oo xoog badan shakhsi ahaana, waxa uu lahaa xirfado ciidan iyo kuwa ciyaareed oo ay ka mid ahaayeen dabaasha, feerka culus iyo ciyaarta loo yaqaan rigbida oo uu si aad ugu wanaagsanaa, sida ay sheegeen taariikhyahanada wax ka qoray shakhsiyadiisa.
As a man, he was an extraordinarily powerful specimen. He was 6 foot tall. He had amazing physique. He was as strong as an ox. kii ayaa waxaa loo dallacsiiyey taliye xigeenka ciidanka qalabka sida Uganda. sanad kadibna waxaa loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada Uganda. waxaana dallacsiiyey ra'iisul wasaarihii dalka Uganda ee xilligii xorriyadda Milton Obote oo ay xiriir saaxiibtinimo yeesheen. 1965 Idi Amin Dada oo ahaa taliyaha guud ee ciidamada iyo ra'iisul wasaarihii dalka Uganda ee xilligaasi Milton Obote waxaa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhoofinta sharci darrada ah ee foolmaroodiga iyo dahabka waddanka Congo, taasi oo keentay in jabhadaha reer Congo ay si qarsoodiya u iibiyaan dahabka iyo khayraadka kale waddankaasi uu leeyahay. intii ciidamada uu haystay Idi Amin ayaa waddanka Uganda waxaa lagu eedeeyay inay hubkaasi iyo rasaasta u gudbiyaan fallaagada waddanka Congo ka dagaalama, isla markaasina si qarsoodiya ay uga iibsadaan amaba ay uga qaataan dahabka iyo foolmaroodiga. waxaana arrintaasi si gaar ah loogu eedeeyay taliyaha ciidamada oo Idi Amin ahaa iyo ra'iisul wasaaraha waddanku inay ku lug leeyihiin. waxaana baarlamaanka Uganda xilligaasi ay dalbadeen baaritaan in lagu sameeyo. halkaasi markii xaalku marayay ayaa isla sanadkaasi ra'iisul wasaarihii dalka Uganda Milton Obote waxa uu soo rogay sharci cusub oo awoodda ka xayuubinaya boqor Muteesihii labaad oo ahaa boqorkii arladaasi ka madaxda ahaa, gaar ahaan qowmiyadda loo yaqaan Buganda oo Ingiriisku ay aqoonsanaayeen boqornimadiisa. waxaana xigtay ra'iisul wasaare Obote uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalka. waxaana madaxweyne Milton Obote uu amar ku bixiyay in taliyaha ciidamada Idi Amin uu hubka dhigis ku sameeyay ciidankii boqortooyada Bugandada. Obote decided that those Buganda that were arming themselves should be disarmed, and he sent Amin to do that. taasoo keentay taliyaha ciidanka Cornel Idi Amin Dada inuu weeraro qasrigii boqortooyada Bugandada, halkaasoo ay ku dhinteen 100 qof. boqor Muteesihii labaadna uu goobta ka cararo, isagoo markii dambe magangeli ahaan u tagay waddanka Ingiriiska, halkaasoo uu ku geeriyooday 1969. But when Amin got there, he used excessive force that resulted in hundreds of people dead, property destroyed, and the king fled into exile. intaasi kadib Idi Amin Dada oo ahaa taliyaha guud ee ciidanka waxa uu bilaabay inuu qorto tiro badan oo ciidamo ah, balse waxaa lagu eedeeyaa xilligaasi in ciidanka uu ku badiyey qowmiyadaha ka soo jeeda waqooyiga iyo galbeedka ee isagu markaasi uu ka dhashay, kuwaas oo kala ahaa Kakwa, Lugbara iyo Koonfurta Suudaan.